waxa fadhiga fadhiya 7 xubnood waxaan cod gelin doonaa miisaaniyadda 2022 in goluhu ugu shaqeeyo sida wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ku soo dhaqan geliyay xildhibaanada inta ogolay gacanta halkani maanta waxaa si rasmi uga furmay kalfadhigii afraad ee golaha deegaanka magaalada Gabiley ee caasimadda gobolka uu shir gudoominayay maayarka magaalada Gabiley mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi waxaana ka soo xaadiray fadhigaasi afraad 7 xubnood oo ka mid ah golaha deegaanka magaalada Gabiley waxaana fadhigaasi afraad isku qaatay 2 qodob oo kala ahaa oo qodobka koowaad ahaa miisaaniyadda 2022 in goluhu ugu shaqeeyo sida wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaan Axmed uu ku soo dhaqan geliyay iyo qodobka labaad oo ahaa in arrimaha golaha dhexdiisa taagan lagu dhameeyo golaha dhexdiisa oo aan arrimahaasi golaha dhaafin waxaana intii kalfadhigaasi socday cod la geliyay in miisaaniyadda 2022 lagu dhaqan geliyo sida wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ku dhaqan geliyay waxaana uu codeeyay 6 xildhibaan gudoomiyuhuna muu codeynin waxaana faahfaahin ka bixiyay maayarka magaalada Gabiley mudane Maxamed Amiin Cumar oo kalfadhigaasi afraad shir gudoominayay maanta taariikhdu tahay 8 bishii 2022 waxa halkan ka furmay fadhigii afraad ee golaha deegaanka Gabiley fadhigaasi oo goluhu isla gartay in lagaga hadlo laguna falanqeeyo 2 qodob oo qodobka koowaad yahay miisaaniyadda 2022 iyadoo xildhibaanada runtii golaha deegaanka oo fadhigan maanta ay goobjoog ka yihiin 7 xubnood oo ka mid ah golaha deegaanka runtii ay isla qaateen in miisaaniyadda 2022 oo ah miisaaniyad goloweynuhu si wada jira u soo diyaariyay hawsheeduna soo bilaabantay bishii 8aad oo aan u xil saarnay 7 xubnood oo hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenku soona martay nidaamkii diyaarinta miisaaniyadda guud ahaan in goluhu ugu shaqeeyo sida wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha u soo dhaqan geliyay iyo qodobka labaad oo ah in arrimaha golaha dhexdiisa taagan iyo wixii dambe yimaadaba golaha deegaanku isla gartay in lagu dhameeyo golaha dhexdiisa oo aanay runtii arrimahaas golaha dhaafin labada qodob baa golaha deegaanku iskula qaatay fadhiga maanta insha Allah ta'ala ana waxaan rajaynaynaa in arrimaha yara taagan ee bulshadeedu bariyahan bay maqlasina ay halka ku soo afjarmi doonaan oo ilaahay golaha runtii isu xilqaamay in arintaasi dhexdooda wixii jira ay ku dhameeyaan ay ilaahay ku garab galo una fudaydiyo iyadoo rajaynaa insha Allah ta'ala in jawi wanaagsan ay arintaas ku soo dhamaan doonto waxa fadhiga fadhiya 7 xubnood waxaan cod gelin doonaa miisaaniyadda 2022 in goluhu ugu shaqeeyo sida wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ku soo dhaqan geliyay xildhibaanada inta ogolay gacanta miisaaniyadda 2022 in loogu shaqeeyo sida wasiirka arrimaha gudaha ku soo dhaqan geliyay waxa uu codeeyay 6 mudane gudoomiyuhuna muu codeyn cid ka aamustay ma jirto cid diidayna ma jirto saasaanu go'aankaasi dhaqangal ku yahay saasaanu kalfadhigu runtii inoogu xidhay